wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Maxamed Biixi Yunis ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xafiiskii laga furayo magaalada Hargeysa ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ku maamulayaan hawadooda labada dal iyo wali qaadacaadii shirka Belgium loogu qabanayo dalka Soomaaliya wadahadalada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya hamigiisa siyaasadeed iyo arrimo kale ugu horeyntii waxa Maxamed Biixi Yunis wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyo iskaashiga caalamiga ah waxa uu ka hadlay shirka dhawaan ka furmaya magaalada Belgium ee Soomaalida loo qabanayo shirkaasi oo Soomaaliland ay qaadacday waxaana uu iftiimiyay inaanay marnaba Soomaaliland ka qayb gali doonin shirkaasi waxaana wasiirku sheegay inaanay tagi doonin shir Soomaaliya u gaara sidaas la midana waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ka hadlay xafiiska labada dal wada yeelan doonaan ee laga furi doono magaalada Hargeysa uu sheegay inay hawshaasi socoto waa kan isagoo ka hadlaya amuurahaasi shirkan wuxuu ahaa shir xasan sheekh madaxweynaha Soomaaliya iyo EU Barnes Catherine Ashton ay wada jaargaraynaya wada socota in David Cameron kii hore uu xasan sheekh maxamuud sameeyay aynu diidnay macnaheedu ma aha diidmada aynu diideynaa dhaqaale ma rabno diidmada aynu diideynaa waxay ku saameysan tahay idinka leeyahay waxa loo soo casubo shirka loo qabtay xasan sheekh iyo dawladda Soomaaliya iyo EU sida uu socoto laba wadada maantooda hadal ka dhaxeeyeen labada hadal sinan baynahay haddii si simanashaan loo soo casubo waan ka qaybgalay hase yeeshee maadaama shirkani uu quseeyo dawladda xamar annagu marti ka noqonay qadiyaddeeda iyo dhaqaalahana waan u sharaxnay dawladdan iyo dadka bixinaya ee dawladdiska waxaana imika naga isla gaadhnay in ayana kooda la siiyo ay barakeeyo inana keena leena siiyo oo aanu ku dadaalay inaan dhaqaaleena meesha kaga tagin arrinkan hawada waxaan ugu arkaa inay tahay horumar iyo achievement gaaray waxaan la kulmay ninka number 2 oo ah UN Resident Coordinator balada ama Humanitarian Coordinator oo ninka Nicholas K. Bixiga gobolkeedii u Nairobi arrinkan sidii hawsheedii loo geli lahaa terms of reference-keedii board of directors-keedii sidii lacagta loo qaybsan lahaa iyo hawsheedii in la galo sidoo kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland waxa uu ka hadlay wadahadaladii u socda Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu tilmaamay inay wadahadaladu ay dan u yihiin mar walba Soomaaliland sidoo kalena wasiirku waxa uu sheegay inay geed dheer iyo geed gaabanba uu u fuuli doono sidii uu beesha caalamka uga dhaadhicin lahaa qadiyadda Soomaaliland waxana uu markale yiri wadahadalku waa wax aad iyo aad ay ugu muuqato aanu sii wadayno iyaga iyo cidii kale kala qisana arkayno kala qisana anigu ma qabo shakhsiyan anigu hadda afadda sunnada ayada caalamka ku shaqeynaya inay wax ku jaban yihiin wadahadaladu waa guri loo socdo waxa weeye inaan ka fikiro sideen wadahadaladu u sii kordhinaa yeenu la sii tashana masirku wuxuu ku daynaa maqaar kale la tashana sideen wuxuu dhaqaashinaa hawsha inta leeyahay weyn waxa weeyaan wada hadalka qaashitiisa cidaan kala tashanayo cidaan ka taakulaysanano iyo horumarkeeda inaanay statement ku dhicinaan meel isku taagin afartii bilood inta mar la sii maadaya la dhameeyo hadalkani wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ka soo yeedhay ayaa ku soo beegmaya xilli dadweynuhu u dhegtaagayeen qaabka cusub ee uu wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda u shaqeyn doono Ali Mahdi Jibril Xasan shabakada caalamiga ee mandeqnews.com magaalada Hargeysa.